kulan cilmiyeedkan lagu qabtay jaamacadda Stellenbosch ee magaalada Cape Town ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Koonfur Afrika waxaana marti ku ahaa xildhibaan Cabdifataax Ismaaciil Daahir iyo Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo markii ugu horeysay South Africa ku soo bandhigay buuggiisa cusub ee ugu magac daray Africa's First Democracies ama hormuudka dimuqraadiyadda Afrika. kulan cilmiyeedkan oo sanadkiiba mar lagu qabto magaalada Cape Town isla markaana lagu casumo aqoon-yahano Soomaaliyeed ayaa waxaa soo abaabula ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka South Africa. wuxuu ku saabsanaa ama ugu muhiimsanaa si cilmiyeysan oo baaritaan salka ku haysa in dadka Soomaaliyeed loo fahansiiyo in xaaladda iyo wadciga ay ku jiraan maanta ee dawladnimo iyo burburka soo gaaray ay leeyihiin taariikh ka horeysay oo wanaagsan oo dawladnimo. xildhibaan Cabdifataax Ismaaciil Daahir oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay dib u dhiska dawladnimada Soomaaliya iyo waajibaadka ka saaran dhalinyarada Soomaaliyeed mustaqbalka dalkooda. waxaan ku saabsanaydun sida aanu ma garanaysaa aragtiyaha aanu ka qabno in la helo dawlad Soomaaliyeed oo ka duwan dawladihii inaga dumay oo state-ka Soomaalidu inuu noqdo ama dawladnimada Soomaalidu inuu noqoto mid la hanan karo oo la kala dhaxlo daa'ibada ka dhaxalsho aanay noqon wax sidii tii 60kii intaynu qaadanay dib u burbura oo asaasku aanay inooga xumaanin oo aanu noqon mid keeni kara burburkii hore u dhacay oo kale. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo kamid ahaa martidii goobta ka hadashay ayaa waxa uu si gaar ah uga hadlay buuggiisa oo dhawaan ka qoray hormuudka dimuqraadiyadda Afrika. walaal waxa weeye dadka Soomaalidu inay taariikhdooda ma yaqaanaan inay bartaan gaar ahaan dhalinyartu inay bartaan way haddii la yiraahdo wadani in la noqdo waa inaad ogtahay meeshaad ka timiday waxaad ahaan jirtay si aad u ogaatid waxa doonaysid iyo waxaad noqon kartid. marka guud ahaan waxa taariikhda wanaagsan aynu lahaan jirnay ee aasantay maxay tahay oo buugan gaar ahaan ku qoran walaal. dayartu ah kuwa maanta looga baahan yahay inay la yimaadaan fikir wax ku kordhin kara mustaqbalka dalka iyo sida ay u ilaalin lahaayeen midnimada ummadda Soomaaliyeed ayaa waxa ay ka hadleen waxyaabihii ay ka faa'iideen aqoon-yahanada lagu marti qaaday kulankaasi. wuxuu aad nooga sheekeeyay ama aad aan uga faa'iiday madaxdaasi hab dhaqankoodii aad u wanaagsanaa iyo sidii wadanka u soo maamuleen iyo waxyaabo fara badan ay qabteen oo aad u wanaagsanaa aysan qabanin dadka kale oo Afrikaanta yani Afrika ku nool. sida nologu faahfaahiyay boontiyada laga sheegay markii oo la barbar dhigay Afrikada kale iyo macnaha waxa noo soo baxay dad oo inaan u baahanahay leadership ay saysato oo soo shaqeynaysa haddii taas la helo inay haybadii Soomaalida ay soo noqon karto. kulankan oo sanadkiiba mar la qabto ayaa waxa isugu yimaada qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Koonfur Afrika iyadoo qaar ka mid ah dadkaasi laga casubo qaar ka mid ah gobolada dalka Koonfur Afrika waxaana uu gogol dhigiisu yahay in dhalinyarada Soomaaliyeed la xusuusiyo waajibaadka ka saaran mustaqbalka dalkooda. Cabdikariin Mursal, telefishinka caalamiga Universal, magaalada Cape Town.